الحمد لله وكفى ثم صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمانتين. waxaan ugu mahadcelinayaa waxaan bogaadinayaa dhammaan bahda jaamacadda City Court ugu horeeyo gudoomiye Cabdixakiin Xuseen iyo howlwadeennadii sida wanaagsan ee quruxda badan casuumaadan ama kulankan afar wadareedka ah noogu soo diyaariyay. waxaan leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin. hawshaad qabateen ilaahay ajarkeeda ha idin siiyo. caawa waliba ah habeenkii ugu rajada badnaa ee laylatul qadriga inuu ilaahay idin waafajiyo dhammaan bahda waxbarashada ee jaamacadda City Court. aad iyo aad baa u mahadsantihiin baan leenahay. sidoo kale mas'uuliyiinta kala duwan mas'uuliyiinta xaafadaha leh gudoomiyaasha leh maaragtay kala duwan aad baa ugu mahadsantihiin inaad kulankan ka soo qayb gashaan. waxa la yiraahdo annashaadaat idaafiya غير المنهجية oo barnaamijyada noocyada tan oo kala ah oo aan ahayn kulanka waxbarasho ee ah activity-yada iyo barnaamijyada firfircooni ee maaragtay dadka la isugu keenaya. waa waxyaabaha goobaha waxbarashada kor u qaada isdhexgalkooda hogaamintooda wada shaqayntooda isfahamkooda isla markaasna bulshada qaybahooda kale ku soo xira. anagu haddaan nahay bahda waxbarashada de kolay aniga halkan taytalo badan baa laygu yeelay waa laga yaabaa kuwa kale oo idinka qarsoona inay jiraan. jaamacadda City Court waa ka tirsanahay sida laydin sheegay. sidoo kale waxaan ku jirnaa dadka waxbarashada ka shaqeeya. waxa laga yaabaa macallimiinta in dadku ay shaqo adag bay hayaan waa sax weey laakiin haddana waa shaqo aad iyo aad u qiimo badan u sharaf badan. waxaa noogu filan ammaan waxaa noogu filan tusaale shaqadii aan qabanaynay bulshada u haynay muddadii aan waxbarashada ku jirnay min Salmaan Ogo ilaa iyo Zainab waxa way dadka fadhiya inay ahaayeen u badan yihiin ardadeydii. hadda dhaho istaaga dadka wax u soo dhigaan maamulaha oo soo noqday waxa la yaabaa inay is weydiisaan warninkaas intee jiray deediis intee tahay waa laga yaabaa inay is weydiisaan. macnaha waxaanu aad ugu faraxnaa markaanu dadkii aan soo saarnay oo waliba hal door ah aanu aragno. gudoomiye Cabdixakiin baa hadda waxa ardada fiirinaya waxa ku lahaa ardada marka hore ay iskoolka joogaaneen sida ay waxa jira wax la yiraahdo daalib misaali macallinku de ardada inta la eg ma wada xasuusan karo soo laakiin iyagu way xasuusanay. laakiin haddana waxa jira arday la yiraahdo daalib misaali ee ardada tusaalaha ah ee firfircoon. Zainab iyadoo ardayda oo maadaama hadda ka sheekay Cabdixakiin uga sheekeynay dugsi dhexe ah waxay ardada firfircoon ee maaragtay nashaadaadka iyo barnaamijyada idaaciga waxyaabaha aad ka qayb qaata. marka ardadan kale oo dhammaantood halka ka muuqda oo hadda maaragtay qaarkood halkan ay soo istaagayeen iyo qaar kale oo aan soo istaagin waa ardada aan xasuusto ardada tusaalaha ahaa. marka ardaygu markuu iskoolka joogo sida uu u firfircoon yahay ayuu bulshadiina markiiba u dhexgalaya oo wax ku ool uu noqonaya. marka maamulayaasha inay ku dadaalaan mar walba xoogga saaraan in ardayda la soo saaro la tababaro arday tababaran wax way la soo saaro si bulshadii ay macna ugu yeeshaan. qodobada aanu shakhsi ahaan yaasi ahaan aad baa xoogga u saara oo cashar kaliya ardayga hadda dhanka durus kaliya xoogga u saarto de ardayga hadda muqaffil oo xirxiran oo bulshadii ka xirxiran ayuu noqonay. marka aad baa idinku mahadcelinayaa Zainab iyo tiimkeeda waana idinka haynaa oo idinka gudoonnay aad baan u mahadsantihiin. jaamacaddana maamulayaasha waxa leeyahay de maamuluhu waa sahan weeye oo barodhasha arday buu soo saaraa ardada uu soo saaro anagu waxaanu jecelnahay waxyaabahan ku faraxna jaamacada markaan aragno waa faraxna sababtoo ah dadka badan aan soo saarayno waxaan rabnaa goobo ku haboon inay maaragtay
ay ka howlgalaaneen oo jaamacad waxbarashadoodii hayaankooda waxbarasho sii wata xaqiiqatan jaamacadda City Court deegaankeeda iyo meesha ay ku taalo iyo jawigeedu jawi aad iyo aad u qiimo badan weeye waa la socotaan deedeeda iyo haddana xawaaraha iyo shaqada ka socota iyo sida ay bahdu ay ugu heelan tahay shaqooyinka dhisme ee horumarineed ee ka socda waxa la oran karaa waxa weeyaan aad iyo aad uga soo dhalaashay waana jawi aad iyo aad ugu munaasib ku ah maamulayaashuna maamul yarka hameeyay lahaa yarahay waa gaawan tahay ma yarin waxa la rabaa inaynu la shaqeyno insha Allah maaragtay jaamacadda garab istaagno aad baa mar labaad iyo mar saddexaad baa idinku mahad celinayaa ka maamul ahaan inka oday ahaanba waxa weeye aad baa ugu mahadsantihiin sida wanaagsan aad u soo ajiibteen afurkan insha Allahna waxaan rajaynayaa wada shaqeyn wanaagsan mar labaad iyo mar saddexaad ba gudoomiye Cabdixakiin waxaan leenahay halka ka sii wad shaqada shaqada horumarineed oo istaagtay insha Allah taariikhda ku xusi doonta aad iyo aad baa idinka mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad ba dhammaan maamulayaasha iyo inta kale oo madasha joogta waxay laaway bahdi saxaafadda oo qaybaha kala duwan ee bulshada sawirkan quruxda badan iyo afurkan gaarsiinaysa oo ugu muhiimsan meel walba caalamka la naga daawan doono idinkuna aad baa u mahadsantihiin oo dhalinyaro waliba firfircoon oo aad iyo aad maaragtay u firfircoon ah waa idinka mahad celinaynaa. Assalaamu alaykum.